marka madaxweynaha Mareykanku uu la kulmayo madaxweyne dhigiisa ah oo ka socda dal kale, waxaa khasab ah in hay'adda sirdoonka dibadda ee CIA ay maalmo ka hor madaxweynaha siiso xogaha iyo macluumaadka ay ka hayso dawladda iyo madaxda uu qaabilayo, si isaga oo dhan kasta ka og madaxweynaha uu la kulmayo uu kulanku u dhaco. dhanka kale, xogaha amni ee ku saabsan gudaha Mareykanka waxa uu badanaa madaxweynuhu warbixinada ugu muhiimsan ka qaataa FBI-da. badanaa dhegaheenna way ku soo noqnoqdaan magacyada labadan hay-adood ee CIA iyo FBI, qaabka ay u howlgalaan iyo xayeysiiska tirabeelka ah ee filimaanta loogu sameeyo ayaa xilliyada qaar keeni karta inay isku ekaadaan shaqo ahaan, balse waaqacu uu ka duwan yahay. haddaba maxay ku kala duwan yihiin CIA-da iyo FBI-du? waa su'aasha aynu jawaabteeda ku ogaan doonno muuqaalkeenna maanta. dalka Mareykanku waa kan koobaad ee qarashka ugu badan ku bixiya howlaha difaaca iyo amniga la xiriira. wuxuu leeyahay labada hay-adood ee amni ahaan ugu xoogan caalamka, FBI oo kaalinta koobaad kaga jirta amniga gudaha, iyo CIA oo iyaduna hoggaanka u haysa hay-adaha sirdoon ee caalamka. sooyaal ahaan FBI-du way ka facweyn tahay CIA-da, mid walbana waxay ku timid baahi gooni ah, waxayna ku shaqeeyaan shuruuc qeexan. waqtiyada qaar waxa dhacday in khilaaf uu soo kala dhex galo, wada shaqayntooduna ay xumaato, taas oo xilliyo badan khalkhal amni gelisa amniga dalkaas. haddii aynu ku horeyno FBI, waxaa la yeegleelay sannadkii 1908 kadib markii booliisku ku filnaan waayey daboolidda baahida amni ee la xiriirta dembiyada kala duwan. si loo helo hay-ad amni oo u howlgasha hab ka duwan qaabka uu u howlgalo booliisku, waxa uu madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas ku dhawaaqay aasaasidda FBI oo si gaar ah u qaabilsan dabagelidda dembiyada ka dhaca carriga Mareykanka. FBI sharci ahaan waa hay-ad fasax u haysata dabagelidda iyo soo xiridda dadka ay ku tuhunto dembiyada. howlgalkeeduna waxa uu ku kooban yahay keliya dembiyada ka dhaca dhulka Mareykanka. wax arrin dibadeed ahna shaqo kuma lahan. shaqooyinka ay qabato waxa ugu waaweyn dembiyada ka dhaca dawladda dhexdeeda, sida wax istabamarinta, musuqa, dembiyada ku lugta leh lacagaha sharci darrada ah, dembiyada abaabulan, afduubka, dilalka, raadinta dadka u shaqeeya danaha sirdoon ee dalalka kale, ka hortagga weerarada argagixisada, daroogada, burcadda internetka, dembiyada siyaasadda la xiriira. marka ay qof ku helaan dembi, waxay caddeymihiisa la wadaagaan xeer ilaalinta oo markaa kadib siisa warqad fasax ah oo ay ku soo xiri karaan eedaysanaha. waxay sidoo kale baaritaanno iyo dabagal ku sameeyaan shirkadaha iyo ganacsiyada marka tuhun wax istabamarin ama xadgudub shuruucda ah uu jiro. si guud waa shaqada booliiska oo lagu daray habraacyo kale oo sirdoon oo awood leh. shaqaalaha iyo miisaaniyadda ay hay-addani ku howlgasho inta badan ma ahan wax qarsoon. xarunta dhexe waxay ku taallaa Washington. sidoo kale gobol kasta oo Mareykanka ahna waxay hay-addu ku leedahay xarun si toos ah u hoostagta xafiiska dhexe. FBI ayaa leh howlwadeenno gaaraya 22,000 oo howlwadeen, waxaana jira tiro aan intaa ka yarayn oo ah saraakiisha qarsoon ee sida daahsoon uga howlgala hay-adda. miisaaniyadda FBI-da sannadkii waa $13.5 bilyan oo dollar, waxayna si toos ah u hoostagtaa hay-adda amniga qaranka oo ah hay-adda ay hoos yimaadaan dhammaan qaybaha kala duwan ee ka shaqeeya amniga gudaha. CIA hab maamul ahaan, howlgal ahaan iyo miisaaniyad ahaanba si weyn ayay uga awood badan tahay FBI-da. waxaa la aasaasay intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. wakhtigan wuxuu Mareykanku u baahnaa helidda macluumaad la xiriira arrimaha dibadda, xogo si qoto dheer uga warkeeni kara dalalka kale. waxaana la aasaasay hay-addan oo ujeedkeedu yahay sidii dawladda Mareykanka ay uga caawin lahayd sirdoonka arrimaha dibadda. sannadkii 1947 ayaana si rasmi ah loogu dhawaaqay. si ka duwan FBI, hay-adda CIA wax howlgal ah kama fuliso ciidda Mareykanka, fasaxna uma qabto. haddii ay jiraan dembiilayaal ay ku raad joogto oo ku sugan dalka, waxaa khasab ah inay la socodsiiyaan FBI-da si halkaas hawshiisu ugu wareegto. sida FBI ma hoostagto hay-adda amniga qaranka, waxayna u shaqaysaa qaab madax bannaan. cidda keliya ee warbixinta sirdoon ay siisana waa madaxweynaha oo ay toos u hoos timaado. miisaaniyadda CIA
iyo tirada shaqaale ee rasmiga ah ee ka howlgala lama yaqaan, mana lahan dhar xadidan oo ay shaqaalaheedu xirtaan sida FBI-da. dhanka kalena CIA si guud maahan hay-ad fulin ama fasax u qabta soo xiridda dembiilayaasha. waxay howlwadeenno iyo xarumo qarsoon ku leedahay inta badan dalalka caalamka, iyadoo adeegsanaysa farsamooyin kala duwan. ujeedka ugu weyn ee hay-addan ayaa ah inay dabagal ku samayso dadka ama dowladaha ay u aragto inay halis ku yihiin ammaanka Maraykanka, si halkooda looga hortago inta aysan halistan u soo gudbin gudaha dalka. sharci ahaan dembiyada ay dabagalka ku samayso waxaa ka mid ah jaasuusidda, habdifaaca dalalka kale oo ay ku jiraan kuwa xulafada dhowla ah Maraykanka, fahanka iyo dhexgelidda siyaasadda dalalka kale sida abaabulka mucaaradka, jabhado ama banaanbaxyo ka dhan ah dalalkaas. waxaana tusaale ugu dhow in qarnigii 20aad afgembiyadii ugu badnaa ee ka dhacay Laatiin Ameerika ay si toos ah iyo si dadbanba CIA-du ugu lug lahayd, si ay u suurtogeliso in talada dalalka kale ay gacanta u galaan dad taageersan siyaasadda Maraykanka. ka hortagga darogada ku wajahan Maraykanka iyo tan ugu weyn oo ah ka hortagga waxa ay ugu yeeraan argagixisada. 30 sano ee u dambeysay waxay CIA oo kaashanaysa ciidamada cirka iyo kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Maraykanka ay duulaanno ka geysteen 10 dal, iyaga oo sheegaya inay ku raad joogaan kooxo ammaankooda liddi ku ah. xogaha sirdoon ee ay hay-addani soo gudbiso ayaa ah kuwo muhiim u ah jihaynta siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka. marka madaxweynaha Maraykanku ula kulmayo hogaamiye dal kale